ilaahay wuxuu igu ogayaa boqol kontonka waxaan ku xaraynaynaa xeryaha dowladdan ku xaraynaynaa anaan u horeyn doona haddii ilaahay waxaad ogaataan wallaahi ilaahay magaciisaan maraya oo ana ka been sheegayn asaga iyo geeliisa iyo xoolihiisa waxaan ahayn inaysan u baxaynin sidaan u xaqiijin lahayn in bulshadan meesha degani in dhib iyo shiddo midna aysan ku daaqin oo nabad lagu daaqo in xoolihii la kala hayey la kala celiyo khayrlahaas iyo laamihii amniga iyo odayaashii ay ka mid yihiin sheekh salaad iyo xuseen dubbad iyo ragga kale odayaasha horey u joogay magaalada baa soo fuliyey muxuu ahaa kala celintii xoolihii sidoo kale asagana sadacakooda waa u mahad celinaya asagana shaqadii maalmihii fogeyd uu halkaan shaqada badan ka soo qabtay aad iyo aad baan ugu mahad celinaya asaga iyo raggiisaba iyo laamihii amniga ayagana halkaan yimid waxaan rabaa meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala garasle ummadda nimcadu ugu siiyey maanta waxaa ka mid ah xareeddaa iska waran oo maanta meel kaloo soomaaliya ama etoobiya gudaheeda ahoo ay dadka degan yihiin oo xareeddaanoo kale aysan lahayn horta middaas in ilaahay loogu xamdiyo aad iyo aad baan runtii aan u danaynayaa geela iyo ariga iyo lo'da halkaasaan deganaa subax walba halkaanan ka fiirinayay geela iyo ariga iyo balligaasay u dhacayaan ma malin karti waa nimcooyinka ilaahay horta ilaahay aan ku xamdino taa ka bacdi markaan aado midda amniga horta waxaan leeyahay dadkan sida daarood ama reer sade horta waa curadkii daarood sidana qofku markuu curad yahay waa inuu u turaa cid walbaba waa inuu ehelka u turaa walaalka u turaa ninka ka yar u turaa horta waxaan idinka codsanayaa dadkan walaalaha aan nahay horta curad baan u nahay inaynu wax badan ka tanaasulnaana laga rabaa oo aan dadka u turnaana laga rabaa markaasna annagana waa nala fahmiyo waa naloo turi sidoo kale maaha inaad daarood keliya aan leeyahay u tura dadkaa kaloo soomaaliyeed oo dariska nala ahna laftigoodana in loo turaan oo waa maxay ninkii dembi geystaa dembiga asagaa laga jarin xaqiiq waxaa in asaga laga jarin waxaa jirto maanta ninkii mareexaan oo ka yimid boollo dhabarka shishadeeda halkaanu maanta saan u ahaa ama waaba soo degayba gabdhaha ad aragteen oo runtii masaakiin ahoo naftooda iyo ciyaalkooda wax u raadinayaan maanta garasle waxay u joogaan waxaa weeye inay ku noolaadaan bay rabaan waxaan rabaa inaan tilmaamo waagii hore waxaan ohan jirnay war allaha naga qabto keliyaan ohan jirno ninkii wax sameeyo laakiin maanta cod dheer waxaan ku leeyahay ninkii maanta xadgudub sameeyo xadgudub haba yaraadee oo ama qof dhiig islaam ama bini aadan iyadoo ummadda saa iskugu soo guurtay ninkii maanta xadgudubkaa sameeyo ama xoolo islaameed ka soo meel kale waxaad ogaataan wallaahi ilaahay magaciisaan maraya oo ana ka been sheegayn asaga iyo geeliisa iyo xoolihiisa waxaan ahayn inaysan u baxaynin waa la obrashimi midda dowladda xagga naga jirta iyo midda xagga naga jirtaba labaduba way obrashimi doontaa waana ka shaqaynaynaa middaas inaan isku si obrashino markaan saas leeyahay waxaa weeye naftaydaan ilaalinayaa naftiinaan ilaalinayaa dadka maanta masaakiinta oo daaqa u yimid oo cabitaanka u yimid baan inaynu ilaalino naftooda dhinac walba laga obrashamayaa qof kale oo mareexaana oo guurayaa ama ka tegayaa ma jiro degan baa la dhex mari halkaasaa loo dhex mari geelisaa lasoo obrashami hadduu 150 halaad lahaa ilaahay wuxuu igu ogayaa 150 waxaan ku xaraynaynaa xeryaha dowladdan ku xaraynaynaa anaan u horeyn doona haddii ilaahay
maqnaan doono labada bilood saddexda bilood la cabayo ama la daaqayo meel kale aadi mayno waa soconaynaa waana kor joogtoonaynaa ina hebel baa loo yaqaana dhibaatada sameeya waxaan saa u samaynaya u leeyahay waxaa weeye inaan qof dulmi uu galay uusan qof kale lagu oborashinin meeqaa qof intuu dulmi galay qof masaakiin oo gurigiisa joogo ama dhiiggiisa la daadiyey ama xoolihiisa la banaystay ma dhacaysa haddii ilaahayd asagaa la oborashimi asagaa la qaban xabsiyeen ama asagaa la toogan looga hari maayo xaq ilaahay ma aha in dad islaameed oo masaakiina inay intaanu u baaba'aan xaq islaan ma aha war waxaa weeye waa inuu asaga ama u dhintaa ama loo sabtaa ama oborashima wax kaloo ka dhexaynaya ma jiraan waxaan rabaa garasle nawaaxigeeda ninkii wax ku sameeyo ayada idinkoo saa u fadhiyo dukaamada oo shaahina cabayo in la gudbo oo la aado ninkii wax soo sameeyey in la gudbo oo la aado anigana waxaa iga go'an maalintii la yidhaahdo waxbaa dhacay inaanaan fariisan amniga inaanaan fariisan soo lama oran jirin markuu qof wax sameeyo dadkaa la bilaqaysan xoolaha la qaadan soo lama dhihi jirin ma jirto si karo yeeli karo annagaa soo dhex fariisaneen laakiin waxaad garab igu siisaan oo ilaahay idinku og yahay oo mareexaan u garab igu siisaan ninkii waxaa sameeyo oo fitintaas sameeyo inaynu keligii asaga u burishino ballan qaadayna waa maasantii marka abshirta allahna waafaji ilaahay wuxuuna siiyey roob iyo nimco iyo barwaaqe ilaahay naguma fidneeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa nimco iyo barwaaqe iyo gol inuu naga siiyo ilaahay ummadda islaamka soomaaliyeed meel walbaba ay joogaan nabadgelyo ilaahay naga siiyo allahuma salli calaa maxamed